gobolada dalka iyo deegaanada Somaliland guud ahaan waxa laga tukaday salaada doonta magaalada Burco oo kamid ah meelaha waqti xaadirka laga dareemayo xaaladda abaareed ka jirta Somaliland ayaana kamid ah meelihii laga tukaday salaada doonta shacabka magaalada Burco ayaana saaka isugu soo baxay garoonada waaweyn ee kala duwan ee ku yaala magaalada Burco si ay dadku Allah uga baryaan inuu u soo raxmaadkiisa kana dulqaado dhibaatada abaarta salaada doonta waxa shacabka kala soo qayb galay maamulka gobolka Tukaday shacabka intiisa badan salaada doonta waxa ay ka ogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco waxaana halkaas laga akhriyo ducooyin kala duwan kuwaas oo laga bariyay in uu naxariiso adoomihiisa Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma asqina ghaythan mughithan hani'a مريئا غدقا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقيا الرحمة اللهم سقيا الرحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم اسق عبادك نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وزارة الدينta iyo awqaafta ee Somaliland ayaa dhawaan ilaamisay salaad roobdoon taasi oo laga tukan doono gobolada Somaliland iyadoo deegaanada kala duwan ee Somaliland ay ka jiraan xaalad abaareed kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka kala duwan ee deegaanada Somaliland waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco